habeen wanaagsan waa Ustaad Cabdicasiis iyo tusaalihii shanaad oo ka mid ah lixdii tusaale ee practice-ka ah ee luqadda HTML-ka buugga Form 3-ga chapter-ka web design afraad. Waayahay tusaalahan shanaad waxaynu ku qaadan doonaa write HTML code. Qor baa la yidhi HTML code qor. To write to create si aad u abuurtid a table si aad u abuurtid with 3 columns and rows. 3 row iyo 3 column leh. Table-kuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha luqadda HTML ay awood u leedahay in lagu abuuro. waayo marka waxaan abuurinaa table 3 row iyo 3 column leh ayaynu abuuri doonaa insha Allah taala. waayo waxaan tegaynaa marka waa sublime text-geena ayaynu soo kicin doonaa sublime ayaynu soo kicin doonaa waa kan file baan tegayaa marka koowaad waan save gareynayaa file-keygana save gareynayaa save baan leeyahay desktop baan dhigayaa waxaan u bixinayaa lesson 5 waa tusaalihii shanaad ee html baan raacinaya. waayo markaan sidaa u save gareeyo waxaan sameynayaa marka koowaad waxaan qoranayaa asaasiyaadkii HTML-ka ama web page-keygii. Title-ka waxaan ka dhigayaa lesson 5 waxyaabahan sharixi maayo dee isla fahansanahay. lesson 5 ayaan ka dhigayaa body tag aan tegayaa markasta oo aad wax soo gelinaysid body tag aad tegaysid. waayahay marka koowaad waxaan qoranayaa tag-ayga center macnaha uu ku fadhiyo waa la fahansan yahay filaya. waayo marka aad table abuurisid waxaa la adeegsadaa tags. horena waa usoo sheegnay HTML-ka marka aad joogtid shaqo kastoo aad qabanaysid tag baa qabanaya. qoraal markaad soo gelinaysa b tag baa soo gelinaya markaad sawir soo gelinaysa img tag baa soo gelinaya markaad laba page isku xidhaysa waxaa qabanaya a tag iyo href background-ka marka wax kasta adigu waxaa qabta tag loogu talagalay baa qabta. good hadda markaynu inagu marka table soo gelinayno waxaan isticmaalanaa tag la dhaho tag fara badan baa horta isticmaalanaa. waxaan isticmaalanaa tag la dhaho table waxaan isticmaalanaa tag la dhaho th tr td afarta tag baan isticmaalanaa. tag la dhaho table ayay marka koowaad ka bilaabanaa. waayo tagga table muxuu yahay marka tagga table waxaa la dhahaa waa the parent tag weeye waa tagga maamulaha u ah ama parent-ga u ah dhammaan content-ga iyo macluumaadka table-ka. dhammaan macluumaadka kale ee table-ka sida rows-ka columns-ka saliyada xogta waxay hoos imaanayaan table tagga furan iyo table tagga xidhan dhexdooda. tagiska waa kusoo sharaxnay cashirka caadiga ah mid walba waxa uu qabtay iyo sida uu yahay. waayo kan marka waa qalfoofta iyo scope-ka aan table-ku dhaafi karin waa inta xogta table-ka ee maamulas labada tag baa maamulaya oo la hoos imaanaya. waayo marka koobaad intaadan wax kala qaban waxaad abuuranaysaa rowskaaga. rowga koobaad waa rowga aynu ciwaanka ku qori doono. waxaanu sameynaynaa marka koobaad waxaynu qoranaa row marka aad qorayso waxaa la isticmaalaa tag la dhaho tr waxay u taagan tahay table row waxayna inoo sameynaysaa ama inoo abuuraysaa row waa la garanaya waan filaya rowgu inoo abuuraya. waayo rowgaas marka aynu saa u sameyno waxaynu qoranaa rowga koowaad markuu inoo abuurmo waxaynu sameynaynaa table-ka waad aragteen oo table-ku wuxuu leeyahay ciwaano. hadda tusaale marka imtixaankaaga marka lasoo bandhigayo ciwaan buu leeyahay table-ka imtixaanka lagu soo bandhigo oo maxaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya ID-ga ardayga magaca ardayga classka ardayga 5 maade ama 6 maade uu galay imtixaankooda totalka average kuwaas sare waxaa la dhahaa table head baa la dhahaa ama ciwaanada table-ka la dhahaa. marka rowga koobaad hadda hal row baynu abuuray rowga koobaad waxaynu ku qoranaa ciwaanada table-ka sida buugga uu qoray baynu raacanayo table-ka aynu soo saaranaa waa table ardayda loogu talagalay maadooyinka ardayda dhigtaan ama table-ka iskuulka oo kale ayaan ku sameynaa. waayo rowga koobaad markaan abuuro waxaan adeegsanayaa table la dhaho th xale tag la dhaho th tagga th la dhahaa muxuu qabtaa waa table head baa loo soo gaabiyay waa ciwaanka table-ka. waayahay ciwaanka table-ka ciwaanka koobaad wuxuu noqon doonaa ama column-ka koobaad ciwaankiisa wuxuu noqon doonaa tusaalahan oo kale sabti. waayo mar labaad baan hoos tegayaa waxaan leeyahay th ciwaanka labaad ee table-kayga ama waxa la yiraahdo column-ka labaad ciwaankiisa wuxuu noqonayaa axad. banaankan uga baxayaa th-ka ku xiga wuxuu noqon doonaa isniin. waayo th-ka ugu dambeeyana wuxuu noqon doonaa talaada. intaasaan sameynaya. okay save baan leeyahay right click baan leeyahay open browse baan leeyahay saynu aragno waxaa la inoo sameeyey. maxaa la inoo sameeyey marka waxaa la inoo sameeyey table-keena ciwaanadiisii baa la inoo abuuray waa ciwaanadii kuwan maxaa la dhahaa table head baa la dhahaa waa sabti axad isniin talaada waa kuwan waa maxay waa ciwaanadii table-kaaga waa table head baa la dhahaa.
marka aan sameynayo ama abuurayo maxaan adeegsanayaa intanaan adeegsanaya th kanaan adeegsanaya haddaan kan ka taxo talaadaa ka baxsa khadka tusaale fiiri haddaan hadda save gareeyo right click login browser waa kan isniin buu ku joogaa sababtoo ah ciwaanadii ciwaan ka mid ah ayaan saaray marka waxaan kaa rabaa marka inaad kala ogaatid tr maxay tahay th maxay tahay tr waxay tahay waa linekaas oo dhan baa tr la dhahaa th-na waa ciwaanada ciwaankan waa 1th kan waa 1th kana waa 1th kana waa 1th marka waxa la yidhaahdo th iyo tr waa inaasaa u kala fahantaa waa ciwaankii rowga koowaad waan abuurtay ciwaanadan ayaana ku dhex qortay rowga labaad wuxuu noqonayaa sabtida xiisada koowaad axadda xiisada koowaad isniinta xiisada koowaad talaada xiisada koowaad saasuu noqonaya waaye maxaan samaynayaa marka tr tan ayaan dibadda uga baxayaa hadda day tr lama dhex gelinayo tr tan ayaan dibadda uga baxaya row labaad baan abuuranaya rowgii koowaad ciwaanadan ku wada soo maha rowga labaad waa kan xogta ku xarayn lahaa rowga labaad baan abuuranaya tr markaan qoro haye waaye xogta marka la xaraynayo waxaa la adeegsadaa tag la dhaho td table data si marka xogta ciwaanada la qorayaba loo adeegsanayay th oo u taagnay table head hadda waxaan adeegsanayaa td oo u taagan table data si aan xogta u xarayo waaya maalinka sabtida maadada koowaad ee la qaadanaya maxay tahay waxaan leeyahay waa math good haye maalinka axadda xiisada koowaad maxay tahay td baan leeyahay daatada la gelinaya maalinka axadda waxa weeye maalinta axadda xiisada koowaad waa soomaali good waxaan leeyahay marka td kalaan leeyahay maalinka isniinta xiisada koowaad waa maxay waxaan leeyahay waa english waaye maalinka talaadada xiisada koowaad waa maxay waxaan leenahay waa ict intan maxay tahay marka intaan marka koowaad row baan abuuray rowga markaan abuuro rowgan waa rowgii labaad daatadaana ku xarayn lahaa ciwaankii haddaan qortay waa inaan xogtii qoraa marka xogta markaan qorayo waxaan adeegsanaya taglodo td td-ga koowaad waxaa lagu beegayaa th-ka koowaad td-ga labaad th-ka labaad td-ga saddexaad th-ka saddexaad td-ga afraad th-ka afraad baa lagu beegaya intaa marka aad samaysid markasta save garee qoraalkaaga waan save gareeyey right click baan dhahayaa opening browse baan odhanaya marka waa kan inta tr baa ii abuura laba tr ka koowaad maxaan ku qortay th oo ah ciwaanada tr ka labaadna waxaan ku qortay daatadii lagu xarayn lahaa ciwaanada hoostooda haddaad u fiirsatid labada qoraal isku midab maaha isku kalar maaha kan sare ayaa madmadow kan sare sababta loo mooday waa maxay waa ciwaano ileen waa ciwaano madowgana maxaa ka dhigaya taaga aynu isticmaalaya th baa ka dhigaya waayo row saddexaad markaan abuurayo maxaan samaynayaa waxaan rabaa maalin walba 4 maalmood in aan xiisada labaad qoro waxaan leeyahay tr markaan dhaho waxaan leeyahay td ileen daatadii baan xaraynayaa td markaan dhaho waxaan sheegayaa tusaale sabtida xiisada labaad waa maxay tusaale waxaan leeyahay waa english haye axadda xiisada labaad waa maxay waxaan leeyahay tusaale ahaan kale waa islamic isniinta xiisada labaad waa maxay tusaale waxaan leeyahay waa carabi talaadada xiisada labaad waa maxay waxaan leeyahay tusaale kale waa chemistry safe baan leeyahay right click baan odhanayaa open in browse ayaan odhanayaa waaye good xiisada labaadna waa aragtaa rowgi labaadna waa aragtaa tusaalahan kale waxaa ka dhiman inaa ku samaysid wax loo yaqaano borders oo xuduud u kala yeeshid selyadan waxaas inaad qurxisid tablekaaga inaad weynaysid waxaas oo dhan waa ku samayn kartaa laakiin css buu kaaga baahan yahay hadda si aan videoga inoogu dheeraan ardayduna aysan confuse ugu noqonin waxaan rabaa inta book sameeyey bes inayn ku koobnaano oo aynu wixii simples garayno aan yarayno fududayno si fudud aynu u qorro waaye intani waa intaas waxaanu abuuray table ka kooban 4 column iyo 3 row adiga laga rabaa rowga afraad inaad ku dartid oo rowga shanaad ku dartid rowga lixaad ku dartid ilaa iyo inta aad 6 xiisadood ee 4 maalmood la qaadanayo aad samaynaysid intaas waa habka table-ka loo abuuro aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam